وغلاد الشيعة كمديهين marka la fiiriyo mabaadiida iyo mu'taqadaadka kutubtooda ku qoran ee ay rumaysan yihiin waa mabaadi gaalnimo iyo kufri ah iyadoo wali soconayo dagaalka bariga dhexe ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Iran iyo sidoo kale Mareykanka iyo xulafadiisa dagaalkaasi oo ay Iran duqeymo kala duwan ka wado dawladaha Carabeed ee bariga dhexe iyo mabaadi ahaan iyo islaam ahaanba su'aal laga weydiiyay Sheekh Umal oo kamida culimada Soomaalida ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaanu laga weydiiyay dagaalkan bariga dhexe iyo waxyaabaha mabaadi ahaan iyo ku salaysan yahay waxaanu si bareera oo ku tilmaamay in ay shiicadu waxyaabaha ay aaminsan yihiin ay tahay gaalnimo waxaanu sidoo kale dul istaagay in dawladda Iran laga jarayo waxyaabihii ay iyadu ka fulisay wadamada islaamka imakana ay wajahayso cawaaqib xumada waxyaabihii ay hore u geysatay waxaanu sheegay inaanay islaam meel ku lahayn marka loo eego kitaabada iyo waxyaabaha iyagu qoreen ay aaminsan yihiin waxay u baahan tahay dhinacyo dhowr in laga istaago si fudud jawaab yar oo duuduuban haddii laga bixiyo taqriiban si khaldan baa loo fahmi karaa dhowr dhinac baan marka dul istaagaynaa waa midda koowaad ee horta Iran waa dawlad raafida ah shiico oo raafida ah waay si aad u ogaataan horta maxay tahay Iran raafidadu waa gulaada shiicada kamidyihiin marka la fiiriyo mabaadiida iyo mu'taqadaadka kutubtooda ku qoran ee ay rumaysan yihiin waa mabaadi gaalnimo iyo kufri ah quraanka iyo sunnada marka lagu miisaamo warka siyaasiyiinta iyo muxalliliinta meel iska dhigo iyo jeclaysi hebel baan jeclahay hebel baan nacba ama ashkhaastooda iyo mujtamacooda culimadu qaarna culimadooda gaalaysiiyaan maadaama aqoon ay leeyihiin dadweynaha iyo shacabkana way ka soo reebaan qaarna gaalaysiintooda way ka gaabsadaan laakiin mabaadiida ay rumaysan yihiin ee kutubtooda ku qoran marka miisaanka iyo quraanka iyo sunnada la saaro waa gaalnimo cad tawa qodob xagga siyaasiyan marka la yiraahdo shiicada raafidada taariikhdeeda markii dib loo raaco cadow sunniyiinta uga daran ma jiro dadka muslimiinta ee sunniyiinta iyaga aan ahayn iyo taariikh ahaan colaadooda iyo dagaalkooda ugu darnaa taariikhdan dhow iyo tii fogeyd intaba waa nimanka gaadhay xataa heer intay ku soo duulaan kacbada iyo xaramka oo ay xujaydii laayaan xajarul aswadka iyo dhagixii madoobaa inay qaataan wala socotaan 20 sano la maqnaayeen ilaa heerkaasay gaadhay waa nimanka markii tataarku ay qabsanayeen Baghdad way 1 milyan oo muslim ku dileen caasimadii muslimiinta nimankii garabka ku siiyay way tataarku inay Baghdad qabsadaan taariikhdooda marka dheer marka la daba galay dadka sunniyiinta waxay uga darnaayeen ma jiro taariikhdeena dhow in hadda la noolahay dib ugu noqotaan Mareykanku markuu galay isbahaysigiisu markuu galay Afghanistan ee Taliban burburinahay Iran garab bay ku siisay Iraq markii la burburinahay oo Mareykanku galay iyo isbahaysatadiisu Iran garab bay ku siisay sunniyiinta Suuriya markii la gumaaday Iran iyo Hizbullah baa kow ka aha Yemen nimankan hadda saad aragtaan u galay ee burburiyay xuutiyiinta
إيران باقروا وإيرانيين ماذا إيران بيقوان أفر عاصمة ضوضو السنيين تلهايين بيك عنتكو هيان حوكو قبصدين عراق لبنان سوريا وحنا مر الله قاضي إيوه يمن marka dadka qaar baa waxay u qaadanayaan marka laga hadlayo nimankan iyo say u fog yihiin ba waxay u qaadanayaan wadaado oo iska xamaasaysan oo qaraan kuwa siyaasiyiinta iyo kuwa wadaado sheego waxoogaa siyaasiyiinta la yara mowqifa oo iska jecel waxyaalo badan in muxuu ahaa la iska farsameeyo waxa laga hadlay xaqaa'iq waay Iran marka la yiraahdo wixii ay gurubsatay oo sodonkii sane ee jiray hadda u dambeeyay ay gurubsanaysay baa Ilaahay ku saliday hadaad dulmigaagu bato adiga oo muslim ah mid gaal ah oo adiga ka liito Ilaahay kugu saliday oo kaaga argoosani taa horta waa Iran oo ha ku kadsoomina صراعاتك السياسية يتقالوا مرنا ومبادئ هي حقائق مرنا ومواقف هي مصالح هي يعني مقارنة بين المصالح والمفاسد تاهرت قضب كاسين وصاء وقيحنا هذا ولا قام أرمان هذانو إنما عند الدجال كان هذا الشراء سؤال شو كنت المركز تاسي وحوي ورنا عدينا بوها